gudoomiyaha jaaliyadda madaxweynaha Soomaaliland iyo taliyaha booliska taliyaha CID-da بعد الصحافة ده أدبر نقوم هاد لكن فنانينتا أبل دقمة حيان لي وما سنتين لكن بالشوين ترير سومالي لان يأدي مامل كبا سي شرف الله نقوم هاد علينا وينكم هاسين جزاك فنانينتي كل حد نامه والله فنانينتي إلى حد ويت شوقان يقرأ واحد إن شاء الله إن السود دايو أنا سود عينا دوي له إن شاء الله كل بعض وحيس له لما تاجرياش كحدن channel كتبقى الكوركا هذه تايمر كي كوجو ريسيل channel كم تبقى الكوركا سبسكرايب صار كحدنا تنا كمبلي الكفرو هذا مقال كان ما تيجينا وحويان وفنان كان كاهي صالح عرب وحريتيisa dib u helay muddo dhowr cisho oo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland hadaba waxaan warbixintan idinku soo gudbin doonaa dadkii u ololeeyay ee ka dambeeyay siideenta fanaanka caanka ah ee Saalax Carab sidoo kale waxaan isla warbixintan idinku soo bandhigi doonaa fanaanka Saalax Carab oo ka hadlay dareenkiisa kadib markii xabsiga uu ka soo baxay isagoona hadallo kulkulul oo jawaab hawada u mariyay fanaaniinta reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan magaalada Hargeysa waxaan sidoo kale eegi doonaa qaabkii ay kaga falceliyeen fanaaniinta iyo sidoo kale abwaaniinta reer Soomaaliland gaar ahaan kuwa ku dhaqan Hargeysa kadib markii la xiray fanaanka Saalax Carab aan ku bilaabay fanaanka caanka ah ee Saalax Carab ayaa dhowr cisho kadib xorriyadiisa dib u helay waxaana laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland fanaanka ayaa waxaa sababihii loo xiray kamid ahaa booqasho uu booqday magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya iyo sidoo kale heeso uu ku luuqeeyo oo ay kamid ahayd heeso uu qaaday dowladda nabad iyo nolol uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo balse muddo dhowr cisho kadib fanaanka waxaa loo guuleystay in xorriyadiisa dib uu helo kadib sideenta fanaanka Saalax Carab oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu mahadcelinayo dhammaan shacabka iyo sidoo kale dowladda Soomaaliland iyo guud ahaanba maamulkeeda balse wax abaal ah uusan u hayn fanaaniinta reer Soomaaliland hadalkaas oo noqday mid saameyn gooni ah yeeshay fanaanka Saalax Carab ayaa cod uu dhawaan ka soo dhex duubay xabsigii uu kaga xirnaa magaalada Hargeysa waxa uu ku sheegay in uusan ahayn u dhashay Soomaaliya xaqna aan loogu lahayn in lagu xiro Hargeysa tagis uu tagay magaalada Muqdisho waa anigoo ah Saalax Ali Cabdinabi Cabdullah Al-Mahish oo ku magac dheer Saalax Carab kuna heesa afka Soomaaliga ah Soomaaliyeed kana tirsanaa dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya waayadii dambana hadda ku sugnaa Hargeysa aan Hargeysa ku yimid waxaan uga yimid dalka Masar baan uga yimid Hargeysa waxaan u yimid inaan barnaamij ku qabto waan ku qabtay socdaalkayga labaadna waxaan ku tagay Muqdisho aan kula soo qaadanayay waqti taageerayaasheeda 5 bilood ka hor baan Muqdisho ka soo laabtay Hargeysa Hargeysa markaan imidna waa la xiray bacdi 5 bilood ka bacdi ayaa waxa lagu soo oogay kiis ah xamar baa tagtay anigu waxaan ahaa fanaan ka tirsan fanaaniinta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya dhalasho ahaanna ka soo jeeda dalka Yemen Hargeysa waxaan ku soo galay sharci iyo fiisi haddii anigu aan madax badnaanida Soomaaliland aanan dalku gal iyo fiisi kama soo qaateen Qaahira sharcina kuma soo galeen rumaantii Muqdisho haddaan aadan waxaan ahay fanaan dal imid dal kale tagay booqday baan anigu Djibouti baan ka soo heesay dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka soo heesay meel walba Soomaali joogto u taageerayaasha joogaan waxaan jeclahay inaan tago aan waqti la soo qaato waxaan ku xiranahay 12 cisho saldhigga dhexe ee Hargeysa waxa la igu yiri CID baa ku haysata laba mar baa maxkamad la geeyay wax dambi gaar ah oo lagu soo oogay ma jirto dalka waxaan ku joogaa sharci iyo deganaansho oo waxaan ahay nin Yemani ah oo deganaansho dalka uu saareeyay citizenship dalka uu saareeyay kaar qaxootiga haysta bana dalka sharciga uu yaala ma baalmarin cid ma dilin cid ma dhicin cid ma xadin fanaaniintii u dhashay Soomaaliland ee mushaar ka qaadanayay baa intii xamar tageen ka soo heesay ka soo noqday ayaa magaalada dhex maray oo aan cidna soo xidhan anigoo miskiin ah oo nin waxaan ku yiri xanuunsan ah kristool iyo dhiikar baan leeyahay dawooyinkayga baa la siin waayay tacaddi gaaran meesha ku dareemaya xalay iyo habeen hore Ilaahay baa og xaaladeyda gacan iyo lugba aan isku ogeyn baa imka xanuun soo bidix ah waxa la leeyahay kumaan soo xidhay CID baa soo xidhay CID soo xidhay xitaa iigeen taaganay shalay maxkamad ayaa la geeyay maxkamad laba mar markii la soo istaajiyo wax dambi gaar ah lagu soo oogo la waayay waxay tiri ninkan kiiskiisa hal soo gabagabeeyo eediisa rasmiga CID soo gudbiso maanta ay balanta in la geeyo layma geenin ilaa imika wax la igu haysto allaalaan ku xidhanahay ma garanayo
xitaa nafteeda caafimaad dhakhtar ha lagu geeyo ayaa la diidan yahay war dhakhtar aan tago ba ay haysto maxmed lug iyo gacan bidixay xanuuno aanan isku ogeyn baan isku arkaya dulmi baan ku dareemayaa meesha dhexdeeda waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliland anigu dawladda madax bannaan iyo jiritaankeeda haddaan aaminsanayn qawaaniinteeda iyo sharcigeeda ma mareen anigu weligay siyaasad ma dhexgelin waxaan ahaa fanaan taageerayaashiisa inuu waqti la soo qaato u tagay Muqdisho haddaan ahaysan lahaa ogeysiis ah qofkii ajnabiga dalkayga yimaada Muqdisho uma gudbi karana yaa oo aan ogeysiis ka haysan lahaa ma la sheegi lahaa maba gudbeenba waxaan kala sidnaa saaxiibada Suudaan iyo Xariiq oo inta Hargeysa maadaama Muqdisho ka soo noqday waxa aniga il gaar iga dhigay ma garan karo ilaa abtino marka waxaan ka codsanayaa bahda saxaafadda xuquuqul insaanka loo yar xitaa inaan qabsado in wax ay dhaqdhaqaaqaan cid iyo ogol ma jirto ilaahay baa ku soo xidhay ilaahay waa run ilaahay bay soo xidhay laakiin ilaahay wuxuu ku yiri dhaqdhaqaaq sameeyaan taageere cid dhaqdhaqaaq iyo ogol ma jirto aniga ehelkayga iyo familkayga ma joogaan maanta waxaan aaminsan maanta aan sida ragga qayre ee intii dambiile sameeyeen magaalada dhex socda aan ahaan lahaa reer Soomaaliland ama aan jilib weyn oo Soomaalida kamid ah aan ahaan lahaa daqad qaleen ma waxa la leeyahay carab baa tahay baa la leeyahay war anigu haddaan Yamani ahay 20 sano ay Yamani Soomaalida ay haysay ay marti u ahaayeen ay gobonnimo ugu noolaayeen ciid ma qabeen haddii cid gaar ah iyo dad gaar ah waxa igu soo oogay maanta qof intii soo ristaagay oranay waxaas aad ugu samaysay ama waad nacayday ama waad nadishay ama waad naf laga disay ama fanaan ah oo waxba sameyn oo ixtiraam iyo karaamo qof walba ilaahay si uu leeyahay ayaa waxa la igu dhaxiray meel dil iyo tuug iyo aan fanaaniintii iga horreeyay awal loo xiri jiray kiisaskan oo kale aan lagu xirin ayaa la igu xiray waxaan ilaahay ka baryay ilaahay baa cadaalad hayay balse dadka ay shaqada tahay ha noqoto ama ha noqoto xuquuqul insaanka ama cid walba bulshada Soomaaliland iyo bulshada Soomaaliyeedba iyo fanaaniinta Soomaaliland waxaan leeyahay aad baan uga fanku wuxuu ahaa ehel iyo walaalo laakiin waxaan hoygii fanka ee Soomaaliland ee Hargeysa ee afka Soomaaliyeedba xarunta u ahayd waxaad aad maanta dareensiiseen in cid gaar loo dhaqdhaqaaqo fanaaniinta waxaan leeyahay barasho wanaagsan kuwa aflagaadada iyo socialka dalaacada ka wada waxaan leeyahay ilaahay baa idinka weyn ilaahay baana garab la weydiistaa waxaan ku soo gabagabeynay hadalkayga ku dheeraan bahda saxaafadda cid kastoo cid walba walaal muslim ah waxaan ahay nin dhibaataysan oo dulmusan ilaahay hadii gargaar baan idinka rabaa iyo garab ciddii iyo awooday jaaliyadii qiimantaas timid cid walba timid ehelkii cid wax ka soo qaadaysaa ma jirto marka please haddii wax laygu haysto gaar ay jiraan aan sameeyena diyaar ana oo wadadeeda laygu qaado haddaan waxba sameynna nin xanuunsan baan ahay rabadaana weeyaan in xorriyadeeda leysiyaan please waydi bariya haddaba inta aan aadin wixii ka caraysiiyey fanaanka Saalax Carab ee kasoo yeersiiyey hadalka ah in wax abaal uusan kala dhexin fanaaniinta reer Soomaaliland hadalkaasoo noqday mid si weyn u qabsaday baraha bulshada saacadii u dambeeyey waxaan sidoo kale eegi doonaa qaabkii ay kaga falceliyeen fanaaniinta ku dhaqan Hargeysa iyo abwaaniinta markii la xiray fanaaniin uu ku jiro Saalax Carab balse marka hore waa kan fanaanka Saalax Carab oo dareenkiisa cabiray xilli uu ka soo baxay ama laga sii daayay xabsi uu kaga xirnaa magaalada Hargeysa والله الحمد لله إلهي بما تسكله وحن مركواد وبهند علني دمان بالشوين ترير سومالان ugu horeeyaan dawladdiyo xisbiyada mucaaradkuba waxaan kaloo mahad celinayaa jaaliyadda Yamanta waxaan kaloo mahad celinayaa xisbiga UCID iyo xisbiga wadani gudoomiye Faysal Cali Waraabo amiirka iyaga Anwar gudoomiyaha jaaliyadda Xadaara maamooyinka adeerkay Daha Salaal oo ah gudoomiyaha jaaliyadda madaxweynaha Soomaaliland iyo taliyaha booliska taliyaha CID-da بعد الصحافة ده أدبر نقوم هاد علنا لكن فنانينتا أبل دقمة حيان لي وما سنتين لكن بالشوين ترير Somaliland أدي مامل كبا سي شرف الله نقوم هاد علنا وينكم هاسين جزاك فنانينتي كل حد نامه والله فنانينتي إلى حد رويت شوكان يقرأ واحد تشيني إن شاء الله إن السود دايو أنا سود عنا دوي له إن شاء الله مسؤولين كسعودة حسبية معارضك ويجوا قاعن كجيستي سيدين تفنان كان أي يجونا هالكاسك الله صالح عرب وفنان رئيس أنا يمنية runtii in la ixtiraamay dastuurkii qawaaniintii waanu ka mahad celinaynaa annagu mar walba waxaanu jecel lahay calanka sharafta leh inaan cidna lagu hoos tulmiyin hadduu muwaadin yahay iyo haddii aanu muwaadin ahaynba dadaal dheerna waxaanu ka gallay Saalax Carab inuu xorriyadiisa xaqa u leeyahay asaasiga u helo Saalaxna waxa lagu haystay inuu xamar ka heesay Hargeysana ka heesay
hargeysa xamarna isagu maadaama uu yahay nin yamaniya waa isugu mid marka inay xeer ilaalintu garwaaqsatay oo ay shuruucdii iyo eegeen sharcigii waan uga mahad celinaynaa bilayskana waan u mahad celinaynaa marka horeba wuxuu ku xidhnaa sifo sharci darro ah siday xeer ilaalintu nala aqoonsatay ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa guddoomiyaha xisbiga wicid oo dadaal weyn ka galay waxaa kaloo u mahad celinayaa amiir anwar siciid oo isna aan har iyo habeen ka seexan soo dayntiisa waxaa kaloo qaybaha dawladda kala duwan oo ay ugu horeeyaan xeer ilaalintu guddoomiye xeer ilaalinta gobolka Mawlid Cabdi Ibrahim ninka la yiraahdo Cabditax 5 daqiiqo taliyaha damabaarista hay'adda baarista CID-da Faysal taliyaha saldhigga dhexe komishinka xuquuqul insaanka oo isna door weyn waa markii koowaad ee mucaaradka iyo komishinka xuquuqul insaanku ay maaragtay ka wada shaqeeyaan hawlaha waxaan rajaynayaa inay nagala shaqeyn doonaan muwaadiniinta kale ee Soomaaliland ee sifaha xaaraanta ku xidhan jeelasha ku jira laba fanaan baa la socday Saalax Carab oo iyagu muwaadiniin ah isagu muwaadin Soomaaliland oo muwaadin sifo sharci ku soo galay dalka sifo sharci ku joogay laakiin muwaadiniintii kale ee Soomaaliland eedoodii xeerlaanta way diyaarisay waana la gudbiyay garsoorina waa lagu qoray galkii waxaanu muddeeyay biri ma haysaa dambe iyagana marxaatibeena waa ahaan doonaa eedooda waa inaynu dhageysan doonaa daawadayaal muuqaalkii maanta inta ayuu nagu weediyahay haddii tahay markii kugu horeysay channelka dabagalka wararka subscribe saar si aad ugu xidhnaatana gambaleelka furo waa inoo muuqaalka xiga